بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaa had iyo goor inagu soo noqnoqota su'aal ah hilibka wadamada gaalada lagu qalo ma xalaal ba mise waa xaraan. hilibkan waxaan ka hadlaynaa hilibka la xalaaleeyay ama lo ha noqdo ama ari ha noqdo ama digaag ha noqdo. markaad xagga shariicada aad eegtid horta waxay ku xidhantahay wadanka aad joogtid. kaba soo qaad imika wadanka waxa laga eegaya marka guudka laga eegaya diinta guud ayaa la eegaya lama eegayo inta diine wadankan laga dhaqmo. hadaynu horta mesela imika Sacuudiga markaynu maxaa ku soo dhacay madaxaaga waxa ku soo dhacaya Sacuudigu inuu dad muslim u yahay oo sunniya. hadii ku raado Iran waxa madaxaaga ku soo dhacaya dad muslim isku sheego oo Shiica ah. hadii ku raado Canada ama Ingiriiska ama Mareykanka madaxaaga waxa ku soo dhacaya inuu yihiin dad Kristaan ah. marka hadaynu halka ka eegno oo marka su'aashu ay noqoto hilibkooda waxay qalaan ma cuni karaa mise maya, shariicadu waxaynu odhanaysaa Ilaahay suurati al-Maa'ida wuxuu inoogu sheegay wa ta'aamu alladhiina uutuu al-kitaaba xillun lakum. cuntadii dadkii kitaabka loo dhiibay idinka horreeyay hilibkooda waa idin xalaal. marka waxaad halka ka arkaysaa inuu xalaal uu yahay. dad fara badan culamo fara badan oo Sheikh bin Baaz, Sheikh Albani, Sheikh Ibn Uthaymin, rag fara badan, Sheikh Al-Qaradawi, dadkii xagga dhageysta culamadaasi waxay yiraahdeen hilibka dabadu waa xalaal. waayo waxay ka eegeen dawa ahl kitaab أهل الكتابنا إلى هاي هلب كودا وحي قلان وينو حلالي. سورة المائدة سورة لقو حلالين هلب أي قلان يهود كريستنكو أيضا قل ده أي إلى هاي كل يهي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كوي إلى هاي صدح يهي وقالوا لقد كفر آيات كان وحي تري لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم كويري إلهي وعيسى ابن مريم كواسنا وقالوا أيقو إلهي كو شيغي قالوا أيو هدنا ويري هليب كودو وحلال. مركا شيخ بن باز وشيخ ابن عثيمين علماء داسي وحي عسكدين دي آيدا سبحانه مركا أنه كريست مريكن كأيو إنجريس كأيو كندا أيو وحي اللمي دا وحنو أرقنين كريستانيين هالكا هدين كوتشو تشينو وحنو أركن إنو حلال ويهي. لكن waxaa jira arrimo fara badan oo culimada dabadda inaga jooga ka qarsoon taas oo ah dadka wadankan inala jooga xoolaha siday u qalaan iyo siday kristankii caadiga ahaa ay u qali jireen waa laba arrimood kala duwan. imika mesela hadaan idin balbalaariyo marka la qalayo neefka jooga Canada dibi weyn baa la keenayay urbada laga soo buuxiyay gidaarka leeg oo adooni aad moodid dibiga meel baa la soo gelinaya birba halka garka hoostiisa ayaa laga qabanaya dibigi marka kor loo qaado garkiisa ama madaxiisa nin baa imanaya halkaas uu ka dhufanaya rasaas in dibigiyo marka naftu ka bixino yaaban oo laatii mogtay shak ku dhacay ayaa qofba marka midi marinaya intaasi waa in dibigu muu dhiman rasaasi kuma dhiman waa iska okay. mushkilada laakiin meeshii taala mushkiladii waxa weeye judhiba dibigii oo naftu aanay ka bixin oo dubaaxinaya oo naftu ku jirto ayaa la suraya in lugta laga suraya hukiba la suraya hargiba laga siibaya calooshii baa la kala jeexaya wixii beerkii iyo calooshii madaqirkii oo dhan dabada la soo dhigaya in madaxii baa laga jaraya laga yaaba neefka marka la jarjaro dad marka shaahid u ahaa oo meeshan lankada assemblyda hilibka la soo saaro waxa jira meel in la saaro ama miis socdo oo la saaro hilibka waxay ka marxaati kacayaan inay lugaha ay soo gaari karto ama garab soo gaari kara is haysta oo la soo gogooyay laakiin intii ka neefkii laga soo jaray oo hadana gariiraya wali waxay taasi cadeynaysaa inaanu neefkan aanu dhimanin wali. haddii marka neefka hilibkiisa la jarjaro intaanay ruuxu ka bixin wuxuu noqdaa najis
نجاسة ويؤثر إنها سنوحة وية ما قطع من البهيمة وهو حي فهو رجس neefka wixii laga jaro asagoo nool waa nijaas imka hadii aad neef qabatid aad ka jartid uu neefku ordayo wali de neefkii lugti aad goosatay waa nijaas waa nafti kama bixisaysan gomay bixin marka waxa loo baahan yahay sidoo hilibkan ay gaaladu qalayaan ama yahuudu ama kristanka hadlana kristanku qalayo waxa loo baahan yahay markay toogtaan ay gowracaan markiiba inay markaas sugaan inta naftu ka baxayso neefka haddii ay sugi waayaan waa najis qofka qalaya marka danka madiina ama muslim ha noqdo ama kristan ha noqdo ama yahuudi ha noqdo haddii laba sugi waayo neefka inta nafta ka baxayso de hilibkaas marka waa najis waxa leeyahay marka in waxa haboon marka hilibkan lagu iibiyo in superstore-ka kanada hadday joogtaan ama Safeway-ga Mareykanka meelaha kale hilib la iska hubo ma aha ama lagu iibiyo hodheeladan la yaqaanay franchise-ka ee in Burger King, McDonald's meelaha soo kale in Harvey's ma koornin qof cuna oo asagoo aaminsan fataawiga hore aynu ka soo hadalay oran maayo xaraan baad cuntay waa ku dambi ugu noqonaysa laakiin qofkii inta hadalkan dhageystay maanta khibrada aanu leenana leh xaqiiqadina soo taabtay waxaanu leenahay ilaahay ka cabso iska daa hilibkaasi hilib wanaagsan ma aha waxaanu u nimi marka hilibkii kosherka ahaa ee ka yahuudu ay qalaan yahuudu way dhaaman kristanka muslimiintana way ka qalis wanaagsan marka la eego technicality-ga way ninkan raabaaga hilibka qalaya ee kosherka u bixiyeen si wanaagsan bay midida u soo lisaan marka hore waxay tagarka ayuu ku eegaa inay tintu jarayso inay mididu tinta ay jarayso in hadhowna markay qalaan way sugaan nafta intay ka baxayso neefka way sugaan marka waxaad moodaa haddii ay ku kadifta mid inaad kosher cuntid iyo inaad cuntid ka kristanka uu qalo waxa labada diinteena u dhow ka kosherka ee yahuudu ay qalaan laakiin inta marka la isku soo duudubo laga yimaado halka la dhigo waxa inagu haboon hadaynu muslimiin aynu nahay inaynu dadka muslimiinta ah hada dadka muslimiinta business kale inaynu businesskooda u camiro horta waa kow ilaahay subxaanahu wa tacaala meel xun inamu dhigino wuxuuna dhigay wadan laxam xalaal leh oo dadka soo qala ay xalaal yihiin dadka iibinaya xalaal yihiin beeraha qaarkoodna ay xalaal dad muslimiin ay leeyihiin xalaal 100% marka muslimka waxa ku haboon inuu taa la macaamilo dadka caynkaas la macaamilo hilibkooda uu cuno inuu iska ilaaliyo wixii shaka nabigana waxa laga soo wariyay sallallahu alayhi wa sallam inuu yiri al halal bayn wixii xalaal way cadday wal haram bayn wixii xaraan aad bay ay cadday wa baynahuma umur mushtabihat waxa u dhaxeeya labadaas uu nabigu sallallahu alayhi wa sallam arrimo isku dhex jira la ya'lamuhunna kathirun min an-nas tadfara badana ma yaqaanaan dad يرو ما كبيح كرا قال فمن وقع في الشبهات قفك كل شبهتها إيه والله هذا كان مقدار اسم حلال با ترك اسم حرام با وشبهت وحول قفك وحا كل فقد وقع في حرام قفك كل ومن ككتجانا فقد استبرأ لدينه وعرضه ككف قال والله إني وأنوس كما هو بأرنتن دين تيسي يشرف تيسي بو إلى شري markaan waxa leeyahay xadiiskaas amray inagu haboon hadii marka mas'alada noqotay mas'alad farabadan oo shaki farabadan inaga jiro ilaahayna subhanahu wa ta'ala inagu hanuuniyo xaqu yaalo iyo tariiqiisaba wajazaakum Allahu khayr wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh